dhagaystayaal ku soo dhawaada warbixino goos ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa wareysi dheer oo uu siiyay hay'adda cilmi baarista ku samaysa arrimaha argagixisada ee Combating Terrorism Center ee CTC ayaa ka hadlay arrimo fara badan. CTC ayaa danjiraha weydiisay sida uu arko dhinaca ay caalamku ku wareersan yihiin oo ah qabiilka iyo qabyaalada Soomaalida sida ay Soomaalidu ugu dhaqanto iyo sida uu Mareykanku caqabada uga saacid calayn karo. Danjire Yamamoto ayaa waxa uu ku jawaabay dhibka ugu badan siyaasadda qabiilka Soomaaliya waa inaadan qofna qabiilkiisa garan kareynin marka aad eegto ilaa ay iyagu ka hadlaan qabiilkooda. waa wax runtii aad u adag in la ogaado. waa caqabad jirta maxaa yeelay waa qaab la isku taageero balse si looga gudbo ku tiirsanaanta qabiilka oo loo dhiso qaran xoogan oo horusocod samayn kara waa inuu dhacaa isbedel jeelaad. in ka badan 70% Soomaalidu waxay ka yireen 30 jir waxayna doonayaan isbedel ay hor taagan tahay ku tiirsanaanta qabyaalada. waxa uu Mareykanku hadaba doonayaa waa inuu ka caawiyo in la taageero waxbarashada waayo iyada ayaa dadka xoreysa. haddii ay 65% dadku u yihiin qabiilku isaga ayaa dalka haysanaya balse si isbedelkaasi u dhaco waa in la helaa isbedel dhaqan iyo mid jeelaad kaasoo waqti badan qaadanaya. ha yeeshee si isbedel siyaasadeed oo nabdoon loo helo marka hore waa inay dadku helaan xorriyad ay ku doortaan qofkii ay doonayaan halkii ay u doori lahaayeen oday dhaqameedyadu. Mareykanka ayaa sanadihii dambe kordhiyay duqeymaha qorsheysan ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab isagoo sidoo kalena sameeyay commandos la yiraahdo Danab oo uu sheegay inuu gaarsiin doono ugu yaraan ilaa 5,000 oo askari kuwaasoo imika ka qayb qaata weerarada qorsheysan ee uu qaado. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Daniel Yamamoto ayaa wareysigaasi CTC waxa wax lagaga weydiiyay sababta uu Mareykanku mar kale u danaynayo Soomaaliya. Yamamoto waxa uu yiri Soomaaliya halka ugu dambaysa ayay ka joogtay gargaarka aanu siino dibadda kadib markii uu Mareykanku Soomaaliya ka baxay 1990 maxay hadda u noqotay dalka shanaad ee aanu siino gargaarka ugu badan. maxaa yeelay Mareykanku wuxuu haatan ka shaqeynayaa sidii ay Soomaaliya u heli lahayd xasilooni ballaaran sababtuna waxay tahay halis baa ka imanaysa haddii aynan sidaa yeelin. gaar ahaan safaaradaheena ugu waaweyn gobolka ee Addis Ababa iyo Nairobi oo ah kuwa ugu ballaaran Afrika nooguna muhiimsan waxay halis ka wajahayaan Soomaaliyada aan xasiloonayn. sidaa darteed waxaan eegaynaa qaab aan u xasilin karno Soomaaliya. waxaan marka bedelnay qaabka aan u wajahaynay Soomaaliya. waxaan u tagnay madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku niri ma doonayno inaanu askar Mareykan soo dirno habeen kasta waxaan se doonaynaa ciidamo Soomaaliyeed. waana taas sababta aan u bilownay howlgallo wada jir ah midkii abid ugu horeeyay aanu la sameynayno ciidamada uu Mareykanku tababaray ee Danab oo ah unugyo xirfadley ah. qaramada midoobay UK midowga Yurub Turkiga Qatar iyo Imaaraadka ayaa iyaguna ciidamo tababaray oo shaqo fiican qabta. yeelkeeda digniintaydu waxay tahay in ciidamada Soomaaliya la isku dhafo oo la midabeeyo oo laga guuro ciidamada inta badan ka soo jeeda waqooyiga iyadoo lagu soo darayo ciidamo badan oo ka soo jeeda gobolada koonfurta maadaama ay shabaabku inta badan halka joogaan. imikana Kenya ayaa xanimaad dhanka cuntada badda ah oo aan ujeedkeeda la fahmin ku soo rogtay Soomaaliya gaar ahaan dhanka badweynta Hindiya iyadoo la xirayo qof kasta oo lagu qabto hantidiisana lala wareegayo oo la gubayo. taliyaha booliiska degmada kalluumaysatada ee Lamu County ee Kenya ayaa bartamihii bishan burburiyay kalluun qalalan oo 12 metrik tan gaarayay kaasoo ka yimid Muqdisho iyo Kismaayo isagoo sheegay inay iska indhatireen xayiraad la saaray ganacsiga xadka labada dal bishii June 2019. Kenya oo Soomaaliya u dhoofisa badeeco 2.2% ka dhamaanba waxyaabaha ay caalamka u iibgeyso ayaa xayiraadan bilowgii ugu marmarsootay in badeecooyinka xadka ka soo gudba ay u nugleynayaan tahriibka dadka kontrabanka iyo xitaa argagixisada. yeelkeeda Kenya iyo Soomaaliya ayaa xubno ka wada ah ururka IGAD oo diyaariyay hab hawleed waajib ka dhigaya in ay dalalku dabaqaan istiraatiijiyado sahlaya wax isdhaafsiga iyo dhiirigelinta ganacsiga kalluumaysiga iyo beeraha. qorshahan oo IGAD dejinaysay intii u dhaxaysay 2016 ilaa haatan ayaa looga gol leeyahay in dalalka xubnaha ka ah ay ka faa'iideystaan iibka kalluumaysiga si loogu dagaalamo macluusha iyo ammaan xumida cunto ee jirta. balse xayiraadda Kenya ay ku soo rogtay kalluunka Soomaaliya ayaa ku tumanaya fulinta qodobka koowaad ee IGAD uga yaala horumarinta beeraha, maareynta kheyraadka iyo deegaanka. imikana Hindiya jilaagii caanka ah ee Bollywood ee Rishi Kapoor ayaa ku dhintay magaalada Mumbai oo ah caasimadda aflaamta Hindiya kadib 2 sanadood oo uu la tacaalayay kansarka dhiigga ee loo yaqaan leukemia. jilaagan oo 67 jir ah
ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyay walaalkii Randir waxaana timid saacado un kadib geeridii jalaagi kale ee muslimka ah ee Cirfaan Khan oo 53 jir ah oo isna kansar u dhintay walow aanu isku meel ka qabanin Rishi ayaa kansarka laga helay 2018 waxaana loo qaaday magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo lagu soo daweeyay ka hor intaan dib loogu soo celin magaalada Mumbai oo uu ku dhashay Rishi oo kamid ah reer Kapoor oo caan ka ah aflaamta Hindiga walow uu qaarkood uu magacu uu ka dhaxeeyo oo aanay dhiig wadaageen ayaa halkii ugu sareysay jilin ka gaaray sanadihii 1970 ilaa 80 waxaanu ka tagay xaaskiisa Natu oo ah qalanjo uu la keenay ilaa 12 filin taasoo u dhashay carruurtiisa Ridima iyo Rambrand oo loo yaqaano Rambir yelkeeda Rishi ayaa hadda ka hor 2016 dood ka dhaliyay Twitterka markii uu Soomaalida ku riday xifaalo loo arkay cunsuriyad qayaxan oo ka dhan ah qaran dhan walow ay dad kale kaftan ku tilmaameen waxaanu soo qoray warkii Olombikada waxa soo baxday natiijada tartanka doomaha England waxay qaadatay dahab Australia waxay heshay qalin halka ay Soomaaliya doontii qaadatay waxaana faalidiisa ka xumaaday dad badan oo ay ku jiraan qaar Hindi ah yelkeeda waxaa jira ogeysiis kale oo ku qoran isla bogga rasmiga ee Rishi kaasoo muujinaya inuusan kaftanka qaar ogoleen wuxuuna u dhigay sidatan ilama aha inay dadku fahmayaan kaftan kasta qanjiirin iyo faaladii kasta ee ku saabsan habnololeedkayga khaaska ah waa blog adiga ayay ku taalaa dhagaystayaal warbixinadii goosgooska ahaa halka ayaanu maanta ku soo abiyeynaa waxaan idinla socodsiinay anigoo ah Maxamed Xaaji oo ka tirsan bahda Hadalsame Media